shakhsiyadeyda hadda ani 3 dukaan iga gubatay oo banaanka aan ka taaganahay $73,000 oo deen iyo deeq aan ilmo ka korsaayay oo inaan qaada cadeeyo dadka la siiyay ay iga baabaaday ujeedaan halkan waxa taagan gaadiidkii dabdamiska waxaana uu kamid yahay agabyada lagu la tacaalayo si dabkan loo dimiyo hase yeeshee isaga ayaaba dhiiqan galay haddana waxay la tacaalayaan dhalinyaradu si isaga looga soo saaro halkan goobtan uu galay si kadibna loogu dimiyo dabka maxaa keenay in 3 mar suuqa hanti wadaag oo gubto waxaan isleenahay meeshan waxba ku jiro dhibaatada waxa keenay haayo iyo cidda dhibaatadan ka shaqeysa in baaritaan degdeg lagu sameeyo ayaan laamaha amniga faraynaa waa hagaag saaxiibayaal waxaan ku suganahay suuqa degmada Jowhar oo saaka dab xoogan oo ka kacay halkan aan taaganahay waa bacadlihii magaalada Jowhar ee shabeellada dhexe oo gibi ahaanba bas beelay in ku dhow 100 dukaan ayaa la sheegay in halkan saaka ay ku gubteen ganacsigii ama dadkii lahaa halkan ay saaka ay ku hanti beeleen dawladda hoose iyo sidoo kale dawlad goboleedka Hirshabeellaba waxay wadaan gurmad lagu doonayo in gibi ahaanba dabkan lagu dimiyo inkastoo hadda dabka xooggiisa la dimiyay haddana wali waa socda gurmadku sidaad u jeedaan oo waxa ku jira gaadiidka dabdamiska iyo kuwa kale ee cagaf-cagafta loo yaqaano si ay ula tacaalaan dabkan xoogan ee ka kacay suuqa bacadlaha ee magaalada Jowhar ee shabeellada dhexe dabku waa ku soo laabtay suuqan sidaad u jeedaanba sanadkii ugu yaraan 2 jeer ayuu halkan ka kacay dabku lamana yaqaano sababta ugu weyn ee sababtay in dabku uu halkan ku soo laabto inkastoo dadka qaar ay sheegayaan in halkan ay tahay goob cariiri ah sidoo kalena ay ahayd dukaamadu kuwa isasaaran oo haddii hal dukaan oo kamid ah uu dab ka kaco ay sababaysa in gibi ahaanba uu suuqa ku faafo haddana wali waxaan si dhab loo ogeyn waxyaabaha sababa in dabku uu halkan ku soo noqdo alxamdulillah saaka waa u jeedaan khasaare ba'ana meeshan ka dhacay suuqii weynaay ee magaalada Jowhar waaye oo gubtay wax walba ilaahay keenin alxamdulillah inaan ku shukrino waay aniga hadda waa kana meesheeda waa taas ama ganacsata ahay meesheeda ku shaqeysanaa way gubatay alxamdulillah markii waa bas beelay dukaankayga waa kaas ahaa wuu bas beelay marka alxamdulillah ilaahay ma diskale shakhsiyadeyda hadda ani 3 dukaan iga gubatay oo banaanka aan ka taaganahay $73,000 oo deen iyo deeq aan ilmo ka korsaayay oo inaan qaada cadeeyo dadka la siiyay ay iga baabaaday gabi ahaanba oo hal shay aan ka badbaadinin ma fahanti inta kale walaalay oo ilamido deen inay qabtaa ogo ayagana wax cadeeya way ka badan yihiin dad waxa jiro ganacsiga ahaba ku gubtay buuga ee deen ku raadsanayaan xataa oo ku gubtay oo aniga maanta iga sii dhibadana buugayga yaab iyo noolbo marka dawladda Hirshabeelle waxaan ku codsanaa dadka Jowhar ku dhaqan inay sidii shalay ahaayeen lees waraysto cod lees ka qaado madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa soo gaaray halkan oo ah suuqa bacadlaha ee magaalada Jowhar oo saaka uu dab xoogan oo ka kacay madaxweynaha oo halkan kula hadlay warbaahinta waxa uu uga tacsiiyay dadkii ganacsatada ahaa ee halkan ganacsiga ku lahaa in ilaahay mashaqadii halkan ka dhacday oo bedel khayr qaba ugu bedelo isagoo sidoo kale ugu baaqay dadka inay ku samraan masiibada halkan ka dhacda suuqa hanti wadaag markii saddexaad ayaa dhibaatadan ku soo noqnoqotay dab aad u baaxad weyn ayaa ka kacay waxaan leenahay ilaahay intii hantidoodu ku baaba'day bedel khayr ah siiyo waxaan ugu baaqayaa laamaha amniga inay baaritaan degdeg ku sameeyaan waa ku soo noqnoqotay dhibaatadan suuqan annagoo ku sabarsan qadarta rabbi haddana maxaa keenay in 3 mar suuqa hanti wadaag oo gubto waxaan isleenahay meeshan waxba ku jiro dhibaatada waxa keenay haayo iyo cidda dhibaatadan ka shaqeysa in baaritaan degdeg lagu sameeyo ayaan laamaha amniga faraynaa ganacsatada suuqa hanti wadaag guddigina waxaan rabaa inay si degdeg isugu yimaadeen dhibaatadan cid sida dhibaatadu u kala baaxad weyn tahay sida wax looga qaban karo iyo sida wax la isula qaban karo inaan ka tashano si degdeg la isugu yimaadana waa laga maarmaan si kastaba tani waa mid kamid ah masiibooyinka rabaaniga ah ee dalka ka dhaca meelo badan oo magaalada caasimadda Muqdisho ugu horeysa sidaas oo kale suuqyo badan ayaa sidaan u basbeelay hase yeeshee waxa jira waxyaabo sababay oo loo baahan yahay inuu maamulku wax ka qabto haddii ay hal hayeen dukaamada ganacsiga ee si aan xadka ahayn halkan looga dhisay ama jid la'aanta ka jirta suuqa waana arrin u baahan inay dawladdu ay wax ka qabato waa Axmed Saciid Axmed oo idin kala soo hadlaya suuqa magaalada Jowhar.